واللوجي عندما هالك كات دجالمية عندما دي معمول قبلية كبدلان عندما كلو هو نوه مقع قبيل سكسو ورصدي أرجع حسده وهو جامنا يعبد مدوبي دي لهاي رالي كنقضو عندما كقرن كونات هول قلدي يصير دجال ويصير لمن لابيان ويصير لمن لابيان وكما فيصل عبد بوتان تليه قوتة لبيتو بنات عيدنك سوماليلاند كسو جيدا markii iminka la qabanayay goojacda muxuu ka qabanayay shakhsiyadiisu waa qof noocee ah hadallada adaadagu waa adeegsan jiray maxaa ka mid ah ciidanka SCC iminka sidee ayuu la dhaqmeen rajada in la soo daayana intee leeg tahay inta muuqaalka ayaa ku daawan doontaa ka hor fadlan muuqaalka laagdhe si dad badan u gaaro valowna na soo dhisi maalin waliba aad nala socoto مازنت فيصل عبد بوتان وسرقال رقعدا وكترسن عيدمدا سوماليلاند تلينا وها عيدمدا سوماليلاند كوا وبدنكود كسغنايين xirada gooja cadee duleedka magaalada Laascaanood dagaal culus oo ka dhacay xirada oo markii dambe sababay inay la wareegaan ciidamada SCC ayaa lagu qabtay sidii muujinayeen sawiro la soo bandhigay baraha bulshada sidoo kalena SCC ayaa xaqiijiyay inay gacanta ku dhigeen Colonel Faisal Cabdi Bootaan Faisal wuxuu sanadii 1960 ku dhashay gobolka Togdheer ee Soomaaliland isagoo markii uu nin weyn noqday u wareegay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wuxuuna ka noqday arday wax ka barta halkaasi bilowgii 8 ayuu ku biiray barnaamijkii shaqo qaran ee xukuumadda kacaanka ee Soomaaliya kadib markii uu dhameystay waxbarashadiisii dugsiga sare isla 8 ayuu ka mid noqday dhalinyaro aan la dhicin nidaamkii dawladda kacaanka isagoo noqday jabhad markii la aasaasay jabhadiisana Faisal wuxuu ka mid noqday ciidamadii jabhadda waxaana la sheegay inay weelinayeen xilliga wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin oo ka mid ahaa saraakiishiisa xilliga ku biiray sanam kadib dhismihii Soomaaliland Faisal wuxuu shaqo weyn ka qabtay dhinaca ciidanka isagoo wax ku hogaaminayay ciidanka Soomaaliland darajada kabtanimada waxaa siiyay madaxweynihii hore Soomaaliland xilli la dalacsiinayay saraakiil shaqo muhiim la sheegay inay u qabteen Soomaaliland muxuu goojacda ka qabanayay iminka kadib markii uu bilowday dagaalkii dadka deegaanka Laascaanood iyo Soomaaliland dabayaaqadii sanadkii hore 2022 ayaa ciidamo dheeraad ah waxay Soomaaliland keentay aagga Laascaanood kuwa oo markii dambe saldhig ka dhigtay xirada goojacde Faisal ayaa hadda ku magacawnaa taliyaha guutada 12aad ee ciidamada Soomaaliland taa oo ahayd mid ugu badan ee ka dagaalamaysa xirada wuxuu ahaa hogaamiyaha inta badan dagaaladii Soomaaliland ee dadka Laascaanood dhaxmaray isaga inta badan kama warbixin jirin halka uu dagaalku marayo iyo guulaha Soomaaliland sheegatay marar badan inay dagaalka gaareen intuu socdo dagaalka Laascaanood ayuu mar ku dhaawacmay dagaalka balse maalin kadib ayuu warbaahinta la hadlay isagoo sheegay in wax sida u badan aysan soo gaarin marar badan ayuu soo muuqday isagoo maxaabiis ayaa General Faisal ayaa isagoo ku sugan aaga goojacde marar kala duwan ka soo muuqday warbaahinta muuqaalka isagoo gacanta ku haya maxaabiista Soomaaliland ku qabatay dagaalka Laascaanood muuqaal u baahiyay telefishinka qaranka Soomaaliland 18 bishii Maars ee sanadkan ayuuna ka soo muuqday Faisal isagoo ka hadlayay maxaabiista ay ku qabteen dagaalka maalinka dhacayay ciidamada maanta aan hayno hadii la oran doono waa maray calas waa ciidamadii daraawiishta ee Puntland ayuu yiri taliye Faisal goobta maxaabiistu ku sugnaayeen ka hadlayay xilliga 5 bilood kadibna ayuu gacantu galay ciidamada SCC Laascaanood bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Saciid Maxamed Muuse waxa uu mahadcelinayaa dhaqaatiirta sida sharafta badan ay ugu adeegeen Soomaali Syrian Hospital oo ay tahay markii labaad aan ku umulo anoo 7 sano aan dhalin dhakhtaradeyda ma sha Allah oo idaaweysay 2022 bishii 3 gabaraan ku umulay xalay oo ah bishii 6 2023 ma sha Allah wiilan ku umulay anoo bilaa xanuun la'aan iska hurdaayo ayadoo la hurdaa meeshaan la iska dhalaa waxaan leeyahay dadka reer Muqdisho isbitaalkan ilgoon u yeeshta ku soo dhawaada دكتور صفا محمد وسوينا أحسن كوا أديجيسو أديجون واحد درين حنون الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الفضل لله الحمد لله والفضل لله. تمت ولادة سيدة سعيدة بالليل
طبعا هي طلبت انه تولد بدون الم، ولدناها بدون الم، وكان المولود كويس، كان وزنه 3.5 وتم ارضاعه بعد الولاده، وهي هلا بخير وسلامه والحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم. سبن ولي بقيتك صومالي سيريان هوسبيتال سكر وما حركتي